السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ii wadaa doolsho wax saliid ama subag ah lagu sameynin. maasha Allah qurux badan ila fiiri waxa uu sameeyay sida uu sameeyay waxa ku sameeyay saddex qayb oo kala baxaysa. qaybtan qaybta ugu dambaysa waaye oo geeska dhiganayna waa creamka adiga iyo chocolate iyo creamka macmacaanka lagu sameeyay iyo inta sigana ay ugu jira qaybta labaad waaye cream shanti iyo koob qumba ah iyo caano talaajada ugu jira. waxaan rabaa inuu si fiican ugu qaboobo ka rabaa. qaybta koowaad inta waxaa ugu jirta 3 xabo ukun, 3 qaando waaweyn oo bur ah iyo 2 qaando oo kakao iyo half cup oo sokor oo kala goosanaya. hal qaybta koowaad ku darsana qaybta kale soo hartane cream shanti qaybta labaad ku sameysanaya. waa kana half cup waaye, half cup ka kala sii baraya. fahanteen? kana 3 ukun iyo vanilla isku soo shubtay carfisa koobkii halfkiisa nus koobkii kala soo baray oo ku soo shubtay koobka halfkiisa la iska dhaamaalay hadda waa garaacaya. marka soo garaaco isku soo noqonayna. kana waa soo garaacday. waxaan ku darsanaya half baking powder baakada dhan ku daray half 3 qaando half baking powder ku daraya. waa shaqshaqaya kakao-gina waa kana burka ma ku labin marka shaqshaqay kakao-ga la kor shaqshaqay haddana xitaa burka iyo kakao isku dari kartaa hal mar marka shaqshaqaysid dib male. kana kakao iyo burka waa isku soo qasay. burka iyo kakao waa isku soo qasay oo yani waa soo wada shaqshaqay oo isku wada jiraan wili ma ku qasan hal mar ku daraa. waa kana cadkaas u jeedin dib malahan inay si fiican ugu qasan ma la rabo inaad si fiican oo marka burka ku dartid kadib u qastid. waa ku shubaya foornada gelinaya soo noqoto aan 20 daqiiqo foornada ugu jiray. waa kana asxaabe way ka soo baxday furunka markii xoogay iyo qabowda saxankeena ku gidsanaya. marka cream shantiga uu soo sameynaya intee ka sii qabowbeyso. markii qabowdan waxaan rabaa caano inaan absiyo. waa kana asxaabe saxankii ku soo urtay waxa sameynaya waa duleelinaya. koobkana caanaha ku cabirtay inta ku shubana inaan absiyo rabo sababtoo ah tartiib ugu shub iyada cabayso. hadaa hal mar ku wada gedisid ma awoodo waa ka caanaha ka daadanaya. waa kana asxaabe oo geeska dhigaya oo creamka kor ka saar lahay qaybta labaad diyaarinaya. iyadana tartiibkeeda u sii cabto hana qabowdo hadda qandac yar waaye toos ha qabowdo. kana cream shantiga sameysanaya hal koob caano oo aad u qabow talaabooyin zaman ay galiyo waaye. kana cream shantiga ku dibinaya iyo sokorti soo qasan. asxaabe creamkii wasana soo garaacday oo koobka qumba ku shubaa. asxaabe ku soo gidgidiyay qumbihii soo dhaxgilay qumbada marka ku shubtid makiinada ma ku garaacaysid. creamku waa diyaar. waa kana asxaabe qaybta labaad saana oo kor saaray keega kor saaro ujeedaan talaajada sii gelinaya inta qaybta saddexaad aan ka sameynayo si ugu qabowdo. waa kana qaybta saddexaad bilaabeyna chocolate-ka xasha baakadana u baahanahay oo marka la reebay iyo creamadaba labada xabba ku sameynaa. labada creamo dabka saaraya markay soo kululaatay soo karto ku shubaya chocolate madi
chocolate ka shubaya aad ay ku lushahay inta shubaa soo igu dhalaalo chocolate ka ku gidgidina xabiiba ku gidinaya toortadii hadda asxaabi baa kana saanaag soo dhigay maasha Allah qoyan tahay in talaajada ku dhaaftid waaye soo chocolate ka oo qalalo kago marka jarjaraysid oo ku dhiban oo kala daadaadan cream-kan hoos ku jiro oo inuu baahan yahay waqtigiin talaajo kana maasha Allah ka faa'iideysi wacan kanaalka da ku cusub tahay subscribe leh iyo videogan ku xidhi like saar asxaabtadan la wadaag. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.